Garankii ina garyare aroortii markii warkii la maqlay dadku saddex arrimood ayay ku macneeyeen waxa ina garyare u furay gabadhii habeen ka hor loo aroosay. Qaar waxay yiraahdeen ninku wuxuu ka saso ayuu arkay oo malaha gabadhnimo ayuu ka waayay caruusada. Qaar kale oo yiri xog baanu ka helnay dadka ag dhawaa caruuska waxay yiraahdeen ma ahee timaha kilinkisha oo uu iska xiiray ayay ku qabsatay oo si caro leh ugu tiri ma adigoon igala tashan baad xiirtay. Inta badan dadku laakiin waxay isku raaceen in gabadhu ay saluugtay macawiis uu ina garyare xidhay iyadoo ku tiri ragga bijaamaha xidha ayaa fiican. Arrintaas oo ina garyare madax xanuun ku riday. Is-afdhaaf arrintaa la xidhiidha ayaa dabadeed dhaliyay caro lagu kala tegay ayuu dadka badankiis isku raacay. Sheekadan garankii ina garyare waxaa qoray madaxweynaha kelinka shanaad ama deegaanka Soomaalida Itoobiya ku yaala Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo ku qoray May 17keedii 2014 mareegtii dhaqanbile ee aan aniga oo ah Sayida Sheekh Axmed ka ahaa tifaftiraha. Waa biladaye gambarkaaga soo qaado. Ina garyare iyo dulmar wax dhib ah ma dhex oolin habeenkii arooska. Kolkii dadku kala hoydeen iyaga iyo labadii minxiis si fiican bay u casheeyeen. Dhibaatadu waxay dhacday kolkii ay damceen inay seexdaan. Ina garyare wuu og yahay in waxa dadku sheegayaan mala awaal yahay, laakiin in ay isdilaan reerka gabadha ama xaal loo qabsado ayuu ka doorbiday inuu sheego wixii dhacay. Dulmar laftigeedu intii arrintu dhacday kadib marar badan bay isku canaanatay haddaad iska aamusi lahayd oo aadan ninka ku oran lahayn waa kulayl qolkuye garanka iska bixi malaha ceebtan taagan ma dhacdeen. Haddana way ogtahay in jawaabtuu ina garyare siiyay ayna marna ahayn mid qofna u adkaysan lahaa. Ma bixinayo garanka ama sidaa ku soo seexo ama warqadaadii qaado intuu yiri ayuu raaciyay aniga sheeko raqiis ah oo ciyaalo suuqin ku soo sheegeen ilama imaan kartid. Dulmar way yaabtay. Waa maxay waxa ninkani uu ka hadlayo bay isweydiisay. Way shakiday muxuu qarsanayaa talo. Dabadeed intay xanaaqday ayay tiri wallaahi haddaanad iska bixin inaadan iqabeyn. Qabniin iyo waxay ka hadashay waa sahalo dhinaca ina garyare marka loo eego xanuunka ay ku hayso inuu calooshiisa qaawiyo. Wuu ogyahay in kun hadday ku gaaloobayso ama ku muslimayso una garanka bixiyaan. Habeenkii oo dhan waxay iscaayaanba. Aroortii baa loo yimid iyagoo kaba isku tuurtuuraya oo labadooduba indhuhu cas yihiin. 27 sano ka hor ayuu ina garyare ka tagay tuulo yar oo la yiraahdo Caraale Lugbuur oo ku taal meel aan ka fogeyn magaalo la yiraahdo Awaare oo ku taal dhulka hawdka. Abtigii oo xamarka nool ayaa loo geeyay isagoo 12 jir ah. Maasha Allah si fiican buu wax u bartay, akhlaaq iyo kartina waa loo daayay. Laakiin cuqdadii iyo caradii uu ka qaaday maalin uu u dabaaltagay xeebta Liido waa maanta ka dhigtay nin shakisan oo wax qarsanaya. Ina garyare waxaa caloosha kaga yaal istallaawyo iyo jeexjeexyo badan oo marqaati u ah sancooyin badan oo lagu soo daaweeyay markii uu yaraa. Fallaaraha naaska hoostiisa kaga yaal waa astaantii cilmi dabiibka ee ayeeyo Kaaha oo Siciid. Yaalkii saaxiibadii ahaa markay arkeen ina garyare way dacaayadeen. Wali wuxuuna ilaawin kii ku yiri xariifka diyaaradan midigta ku taal Mareykan mise Ruush midkee leh. Ku kalena wuxuu ku yiri baadiyaha quraanka caloosha
ma la idinkugu qoraa. Cuqdadii halkaa ka bilaabatay waxay ina garyare dhaxal siisay inuu go'aan ku gaaro in qof dambe oo bini'aadam ah uuna calooshiisa arkin. Uu kaga dhabeeyay oo kolkuu keligii jidhka mayranayo xataa xagga gidaarka ayuu u sii jeestaa. dad looga qaateen ahna waxay sheegeen in maalin sikadiis ah isagoo macawis xidhnayn albaabka lagu soo furay intuu booday oo shaad meesha yaalay caloosha iska saaray isagoo bawdyuhu ay qaawan yihiin. cidinase ma filay in habeenka arooska uu funaanad ilaa luqunta jiq ku siin doono. inta uu guursado ay iyana oran doonto iska bixi garankana meeshaba lama soo dhigan. garan bixin iyo faduusha hadduu guurku wato waaba cidda u dhaqaaqda ayuu hoos iskugu sheegay ina garyare. inkastoo ina garyare dhagxumo badan diyaar u ahaa marna meesha ma soo dhigan. xuseen mooge odagii dhiigkarka qabay ee dulmar adeerkeed ahaa ayaa xabad kugu dhufanaya maxaad garanka iskaga saari weyday. waa biladaye haygaherine isoo raac.